السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا وسلام الدمان تيم عبد الشكور ساود دنتين إن شاء الله وحرجينا أنا عافمت قبتين ما أنت وحسب بني هي ساكت دري مسين ماشى جو عصوب تهاي برنامج كان إن شاء الله وعصوب هاي برنامج كان وحنا نقدر دعوين شيكوين كجورين ليك شيك حريري وحسمهن مثل شيكوين أو ضد إسكاس مستين أو like cooked up stories معهن إن شاء الله وحنا نقدر real stories facts أو experience وحلا جبران كرام سو حلا قاعدين كرو دعوين كان وحنا نقدر دعوين وضمك على كدعين دعوين قف كدعين oo caam ah oo caan ah insha Allah dhacdooyinkaas waxa sameyn doona oo soo gagaabin doona oo si dhalinyaro ahaan aniga sheekan doona marka insha Allah soo dhawaada muuqaalkan hadda hor u galeena dhacdadana maanta aniga sheekeen rabo waxay ka dhacday dalka South Africa hadda marka South Africa maqashid waa iska ogtahay waxa kugu soo dhacay niyadaada kooda u horeeyay waxa waaye dhac bob dil iyo wax oo Afrikaan cawaan badan ay sameeyaan oo wadankaas waa iska ogtahay rabsho Soomaali meel lagu dilay waxaasto laakiin toogtan taas way ka duwan tahay dhacdooyinkan rabshaha markay sameeyaan badan hadda wadankaasi waxay ku sameeyaan dad islaameed laakiin dhacdadan hadda naga sheekay rabo ayaga isku sameeyay oo dhaxdooda doqonnimo iyo dabaalnimo ay sameeyeen ay ku dhamaadeen as a football fan waa ogtiin daabiyashii oo adeegin hadoo kale to marka daabiga Soomaaliya kale u maano xajito Elman iyo Horseed oo zaid u xifaaltamaan oo league isku tagaalaan title-ka markasta kii qaadi lahaa marka Ingiriiska maano kale North London waxa jirto Arsenal iyo maxaa la dhahay Tottenham Man City محلها مانيو ليفربول وأكتين مانيو مان سيتي مركا إيطالياني وكلا إيمانو محاجران كي كلا إنتر ميلان إس ميلان جرمال كلا تو حاجر بروسيا دورتموند بايرن مونيخ هذول بدينهن إسبان وكلا برشلونة ريال مدريد أد بأوفر بدينهن وطن كان هذا ساوث أفريقيا مركا دابي جود أيقو حوا أورلاندو بايرتس إكايزا تشيفز لبضاس بقى أد حفال تمان مركا تاريخ ده مركا كوي تمن كأبريل لبضا كوني كودي وحاجرتي decider game ku dambeeyay oo championship ka final ka ahaa oo qofkii league qaadi la ogaan lahaa game kaas aad buu weynaa sababtoo ay labadaasna maxay ahayn rivals oo derbies haddana final isku yimaadeen marka adiga koobkii loo qabtay tournament-kii la qabtay garoonka loo qabtay wuxuu Ellis Park garoonkaasina wuxuu qaadaa dadku u badan waxa waa 60000 qof u qaadaa ruux oo meesha u dambeysay ayaa 50 40 meelaas dadka imaadana laakiin toogtan niyada ku hayso masala soco inay daabi baasho tahay oo game-ka aad u adag yahay hadana ee final tahay oo qofkii qaadan la kaabkaas lagu ogaanayo adiga garoonkii maalintii la isku diyaariyay finalkii waxa seeto dadkii tikidadii waxa soo gateen hadalkii ku sii dheereenay maalintii finalka 11 April markii la gaaray oo garoonkii Ellis Park la isku imaaday waxa seeto garoonka dadkii markay is wareysteen waxa la dhahay meeqa qof amal expect garanayna marka adiga officials ku xidhan 50000 40000 la dawbato laakiin garoonku wuxuu qaadaa 60000 45 meelaasta rajeynayna ideen ilaan wax ma ogo oo daabi waa baashaneeto wax ka badan baa imaanaya hadana final waa adiga tikidadii wixii baa la gaday garoonka dadkii dhan way soo wada galeen markay soo galeen garoonka aad baa loo soo buuxsamay xadaaf garoonkii oo waxa la arkay 60000 qaaday banaankana ay taagan yihiin ku dhawaad 30000 oo qof oo garoonka buuxsamay markaas waxa la dhahay ma garoonkii halay loogu talagalay wixii uu gaaray ciyaartana wali ma bilaabanin oo baadhow ciyaarta xataa ma bilaaban adiga garoonkii markii arintiisaas ay gaartay laguma sheegay Afrikaan waa isku ogtay gac afkii caloosha cunayso lacag waxaas iska jecel yihiin iyo corruption iyo laluush adiga 30000 meesha taagnaay arkeen garoonkii uuna buuxa laakiin adiga dadkii meesha taagnaa staffska oo ilaalinaya waxa seeto garoonka waxay arkeen dadkan banaanka taagan oo rabaan inay soo galaan iyo garoonka buuxsamay marka dad oo waxa jirto adiga caada qaatiyaal iska corruption waxaas jecel waxay dhaheen ma dadkan xareeno lacagta inta uga qaadano tikidada adiga dadkii lacagta ka gurubsadeen way ku xareeyeen dadkii garoonkii maxaa ku dhahay 60000 u qaadaa 60000 way ku wada jireen baa markaas intay inay lacag ka aruriyeen dadkii ay u fasaxeen 30000 dheeraad ah meeqaalkaas isku tahay 90000 oo qof garoonkaas ku jirto adiga waa la joogay ciyaartii ma bilaabanin ciyaartooyda warm up iyo waxa iska sameeynayay ciyaartooyda markay garoonka soo galeen warm up iyo wax sameynayeen yaab garoonkii xadaaf buuq baa ka jiro zaid buu buuxa adiga kugu sii daro meesha parkingka gaariyaashii jidadkii dad baa jid ku soo jiraya ciyaartana 1 hour 2 hours ka hartay meeqa ku jirta garoonka 9 30 kala banaanka taagan markaas eeto adiga 30kii oo tigidadii wax laga qaatay qaar baa galay garoonkii markay galeen waa la isku rafaaday garoonkii inuu buuxsamaa la arkay oo garoonka jam park damka saadi xadaaf uu yahay tiq
adiga meeshii buuq iyo waxaa ka bilaawatay fiifana waxa u yaal ruulku yaal waxay tahay maxaa la dhahaa ciyaarta ma bilaaban karto ilaa dadka banaanka joogo ay soo xaroodaan dadka gudaha ku jiran ee fadhiistaan garoonka dhan agagaarkiisna square adiga garoonka dhan la ilaalinayo oo maxaa la dhahay like waardiyaashii iyo wax walba ee garoonka dhan oo ku wareegsan yihiin oo staafka ay zaid u ilaalinayaan garoonka oo dadka meelaha soo joogay banaanka iyo waxaas taagan oona garoonka u qaadin ay kala ceeriyaan ruulkaas baa u yaalo laakiin afrikaanta waan isku ogtay cawaan waaye ruulkii wixii dhan may raacin adiga garoonka markay dadkii soo galeen coachkii staafka markii warm-upkii waxaas la sameynayay geesaha markay fiiriyeen waa yaabeen calaa kulli xaal wax buuq iyo qarraac ee jirtaba ciyaartii way bilaawatay garoonkii firimbigaa lagu dhuftay fiib ciyaartii way bilaawatay ciyaartii intay socotay banaanka garoonka dhexdiisana waxaa ka jirta buuq oo cariirisi waxaas waa iska dareemi kartaa garoon 60 qaaday in 90 qof la soo geliyo laakiin banaankina waxaa ka jirta 30 kun oo qof inay taagan yihiin oo ayagana la ceerinayo inay soo galaan rabaan ayagoo dadka sidii loo kala ceerinayo madaxdaygu waa iska ogtay afrikaantii kuwana kala carareen kuwana ay joogaan weli baa waxaa dhacday ciyaarta markay 14 daqiiqo socotay 15 daqiiqo ayadoon gaarin baa ciyaartooyda Orlando Pirates baa waxay dhaliyeen hal gool way la hormareen dhac garoonkii dhan hal mar u sala kacay wow wala boodbood qeeli buuq wixii dadkii banaanka taagnaa waxay bilaabeen maxaa dhacay tiimkeena ma gool laga dhaliyay ma anaga gool laga dhaliyay mise anaga dhalanay warsay wax u jiraan dadku adiga iska dareemi kartaa bil aadankii inuu soo galo raaw wixii arkuu raaw qeelida buuqi garoonka sala ku arkay wali waa la kala ceeriyay oo wali waa lagu adkeeyay wax loo yeelo ma leh ayagoo iska sii bixi rabaan haddana waxaa dhacday Kaizer Chiefs way soo bareejeeyeen oo 1-1 ay ka dhigeen 1-1 markay ka dhigeen oo laba gool meeshii lagu dhaliyay haddana Kaizer Chiefs teamka taageeray korha u kacaan ayagana buuq qeeli garoonka dhanhaas qabsaday hadda dadka banaanka taagnaayeen qeelida koowaad u adkaysteen tii labaad maxaa ka sugay marka maya waxaan celinay malaha warteeda ka tahay darbo ilaad baa meesha ka bilaawtay askartii ayaga isku dhaceen ee soo dardareen qaarna soo galeen garoonka qaar kalena banaanka taagayeen oo ilaa waa arkayna maanaga laba gool laga dhaliyo maanaga hal ka dhignay maanaga laba gool mise anaga labada laga dhaliyo warsay wax u jiraan dheen xoog ay ku soo galeen qayb waa soo gashay qayb kalena askar iyo waxay backup baa la wacday tiya gas ala bilaa in la isku tuuray waxaasto askarti qaladka galeen waxay ahayd tiya gaskii banaanka loo waday qaar qaybna gudiya soo gaartay qaybna banaanka ku dhacay dadkii banaanka kala ororday waxa bilaaday adiga markaas bilaadan ahaan waa isku ogtay bilaadanka suu u dhisan yahay waxa waaye hadii wax buuqi waxaas aragtid eeda aad dagaaltantid mise aad carartid hadda toogtaaneeto wax la dagaaltamo male oo qof cad wax loo jeedo male oo dagaal ma gali karaan marka waxay noqotay in dad kala cararaan dadka gudihi ku jiray baa buuq gudooda ka bilaaday garoonkii dhan uu isku qasmay askarta markay tiya gaaska bilaabeen inay ku tuuraan dadka banaanka jooga xoogina ku soo galaan rabeen dadkii markay kala carar bilaabeen dadkii gudihi ku jirna dad banaanka soo carray arkayaan kuwii kale tan banaanka ay askartii is ciirsanayaan bud iyo wax la isla koraayo dadku isku qasmeen adiga bilaadanka soo dhisan waa isku ogtahay waxa waaye it's either markay wax buuqi wax dhacaan mise waad dagaaltamaysaa mise waad cararaysaa toogtan wax la dagaaltamo ma arkaan ilaa gudiga ku jiraan marka kala carar baa bilaaday buuq baa meesha ka bilaaday collusions dadku isku dhaceen garoonkii dhan officialska markaas ciyaarta markay 15 socotay 15 daqiiqo socotay oo 20 xataa la gaarin fastaafka dhamaanin oo 1-1 na ay tahay waxay decide gareeyeen buuqani waxaan dhan anaga ciyaar kuma wadi karno adiga calaa kulli xal 15 daqiiqo ciyaarta markay socotay waa la joojiyay oo xadaaf baash noqotay officialska refereega dadkii kaabka qabtay waxaasatu waxay decide gareeyeen ciyaartooyda safety-gooda daraado ilaan garoonkii dad baa kor saaran dad baa garoonka gudihiisa soo galayaan dad baa maxaa la dhahay buuq iskor saaran oo buuqayaan dad baa la isku kor joogsanaya waxaasato ayaga safety-ga ciyaartooyda loo fiirinayo coachkii wax walba waxaa la decide gareey inaa si changing roomka lagu celiyo ciyaartooydii dhammaan gurti si arrintan loo dejiyo gudaha markii lagu celiyay waxaa la askar baa la soo fasaxay askar baa la soo daadiyay oo arintii in la dejiyay wax walba meelii dhan markii la fiiriyay manze waxa ku dhahaya meeshaas wax ka dhacay waad yaabaysaa dad adi imagine dadkii oo kala cararaay caruura ku jirto dadkii kala cararkii buuqii waxa ka dhashtay inay meeshaas ku dhintaan 43 baa halkaas ku dhimatay oo lagu kor istaaga bas adiga imagine ma noolaan kartaa adigoo ciyaar u imaatay buuqi waxaynu dhashto lagu kala tuuro lagu istaago 2,000 oo qof 3,000 oo qof lagu kor joogsto ma noolaanaysto ma sii jiraysid ciyaartooyda markay garoonka ka baxday oo changing roomka lagu celiyay dhamaantooda dadkii lagu istaagay waxaas baa dadka ayaga la dhahay soo qaado soo gudbiya maxaa imaadeen dhaqtariintii emergency waxa iyo maxaa la dhahay ambulance iyo emergency dadka caafimaadka qaabilsan baa imaadeen markaas dadkii oo lagu istaagay oo wax gaareen baa waxa la keenay garoonka dhexdiisa
xiligi baa maxaa la oxygen iyo wax loo xiray caafimaadkooda wax la fiirinayay dadkaaneeto way noolaayeen markaasito ilaan haddaa hospitaal iyo wax loola ordi lahaa xataa garoonka banaankiisa maxaa ka jira buuq jaamwa ambulance meelay marta male dadki meelay maraan male wixii dhan adigu dadki saas isku hayaan marka dadkii gudihii la keenay baashii maxaa lagu sameeyey oxygen iyo wax baa loo xiray iyo wax kastii caafimaad lagala gargaari karay waxaasaa lagu sameeyey male wax neefsanaya male dhammaan 43 qof halkaas ku dhimatay hadda iska qiyaas adigoo xaafadaada ka soo baxday oo maanta tiimkaaga inaad taageertid farxadii wax u imaatay saaxiib waa girlfriendkooda iyo waxaas la imaaday dad baa family xaaskiisii ciyaalkiisu la imaanaya waxaas meesha markay imaadeenna wuxuu ka bar helay inay xaaskiisii caruurtiisa lagu joogsaday saaxiibtii uu la imaaday uu meeshiina kula baashaalo oo ciyaarta isla fiirsanaya haafta fan iyo enjoyment meesha uu imaadeen ciyaartiina iska daawadaan naf kula noqon gurigooda cunugiisa soo waday mise aabiisi waalidkii asigii mise aabii lagu joogsaday mise cunug lagu joogsaday على كل حال ماشي صحة كون نفويسي أفرتني 6 قف أمبولانس واحد ولا بمكان سوق قدام عدنا إمرجنس واحد ولا بلسوا قالوا وقارة حتى الديارة دي وحلو قاضي أصلا فيرين القرارات كمشي كي معدن أو شيء كذا نورت كو وحقيقة تلسارة يا ستافس كا أو تجددي وحس أرونين dadka aad ku fara badan hadii garoonka la soo geliyo misalo soo fasaxo meena ka fikireen wax kiimaan karo laakiin waxay ka fikireen jeebkooda iyo lacagta ay qaadanayaan iyo dadkaas lacagta ka arursanayaan dadkaas markii laga soo gudbo labo eedda waxay sii saaran tahay askarta meena ka fikirin waxa ka imaan karo hadii dadkan taxallahay dad saan u tiro badan tiya gas iyo waxaan lagu tuuro guud loo isticmaalay waxaaseeto awood loo sheegto sababtoo tiya gas hadda qof ku tuurtid oo banaanka joogo baashaas asoo ka cararay gudaha u soo cararay haddana tiya gaskii banaanka ku tuurayeen waxaaseeto qaarna garoonka ku soo dhaceen marka meel oo tiya gas ka dhacay maxaa ka filanaysaa kuwii banaanka joogay gudaha ku soo cararaya kuwii gudaha joogana banaanka u carareen marka meeshaas waxaa ka dhacday collusion waa la isku dhacay halkaasna waxaa ka dhacday disaster aad u xun stampede dadkii dhan oo isku istaageen lagu joogsaday ummad aad u fara badan halkaas ku dhamaatay dhaawaca sheegin waxyaabo aad u fara badan baa ka dhacay haddaan anaga Soomaali sheekadan oo kala dhacdan maxaa ka baranaynaa corruption inuu xun yahay horta koo waa baranayna taas waan wada ognahay labo garoon loogu talagalay 60 qof inuu qaado 100 iyo hayay 30 kun lagu soo dar 90 kun noqdo haddana 30 gadaalta banaanka taagan tahay oo inay soo gasho xoog isku dayaysa waa 100 kun iyo wax oo dad madax isku galay oo kala cararaya kala fukanaya meeshaas maxaa ka filanaysaa macaana daadana wax may war isku joogsana wal dhamaana waa sida Muqdisho stadium muxuu qaadaa 60 kun 70 kun meelaas ku qaada maximum ugu dambeyn halaas ku qaada waa adoo 200 mise 150 kun qof isku soo fasaxday oo madax isku galay marka waxyaabo qaar waxaa jirto markii rivalries iyo waxaas la tahay oo aad looga fikiro mise aad loo fiiro mise laga taxadaro marka dadka ay ka taxadarin South Africa Football Association ayagana 10 bay halkaas ka barteen oo way ka taxadareen waxaa jireen rivalries badan kadib xataa World Cup kina qabteen oo wadeen 2010 waxa dhan way ka fikireen oo 10 bay ka barteen marka qaar dhacdo markay ku dhacdo subax 10 iyo waxa laga faa'iidaa laakiin qofka dabaalka waxa waa qof aan wax ka faa'iido maxallay wax walba ku dhaco oo waxaan ka faa'iidino sii socdo maalin kasta wixii oo kale ku dhacayaan kun jeer marka maanta sheekaas baan ila jeclaaday sheekadana saas buu ku saabsaneed insha Allah waxaan rajaynayaa waxa soo kale dhacdooyinkaas kale Ilaahay inuu naga heeyo يا ما شكرا على سبسكرايب تفضل دعم وسبسكرايب نصر أدبك وسلام يعني وعافية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته